haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyn yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallahi thumma wallahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay gabadhii labaad ee u ahayd jaajuus isla markaasina hoggaan sare ka ah ururka al-shabaab ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maadaama halkaasi ay ka ahayd madaxa canshuur qaybinta isla markaasina waa gabadhii ugu horeysay abid ee ururka al-shabaab ee xil sare ugu dhiibtay isla markaasina magaalada muqdisho si la yaab leh lagu soo qabtay si kastaba ha ahaatee sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab u qaabilsan muqdisho oo la qabtay taasi oo ahayd haweeney howlgal gaar ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa la sheegay in lagu soo qabtay haweeneydii sargaal sare oo ka tirsan madaxa al-shabaab ee canshuur qaadista magaalada muqdisho isla markaasina waa aad khatar u ahayd xog ay heshay warbaahinta calansida media ayaa sheegaysa in ciidanka si gaar ah u tababaran ee laba habeen ka horgalay xaafadda xamar jadiid ee magaalada muqdisho ayaa soo qabtay madaxii al-shabaab u qaabilsanaa canshuuraha gobolka banaadir oo ah qof dumar ah isla markaasina magacyo badneed ciidanka ayaa la sheegay in mid ka mid ah moobeelada ay isticmaasho haweeneydaasi ay ku xireen qalabka sheegaya qofka meesha uu joogo kadibna ay galeen gurigeeda oo ku yaala xamar jadiid waxaana sidoo kale halkaasi laga soo qabtay 3 qof oo kale isla markaasina la rumaysan yahay inay ilaaladeeda ahaayeen ama sida gaarka u tababaran guriga la weeraray oo albaabkiisa lagu furay bam gacmeed isla markaasina laga cabsi qabay in halkaasi ku hubeysan yihiin ayaa marka hore bam gacmeed lagu furay ayaa sidoo kale la sheegay in ay ku xireen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-da sida ay noo sheegeen xubno ka mid ah kooxdii weerarka fulisay oo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee magaalada muqdisho haweeneydan oo la sheegay in ay bedeshay madaxii al-shabaab ee canshuuraha kaas oo bilo ka hor isagana laga soo qabtay magaalada muqdisho welina ku jira gacanta dowladda iyo xabsiga magaalada muqdisho ayaa iminka wuxuu yahay madax suge wuxuu yahay xukun suge kadib markii ninkaasi laga qabtay ururka al-shabaab ayaa haweeneydani loo magacaabay si aanan loo dareemin maadaama xijaabkeeda weyn iska jiidayso aan la dareysanayn ayna mas-uul ka ahayd canshuuraha gobolka banaadir isla markaasina qof waliba teleefon ay ka wici jirtay ay dhihi jirtay wiilka go-ag taagan lacagta usoo dhiib taasi oo qalqal weyn ku noqotay shacabka iyo ganacsatada soomaalida magaalada muqdisho marwada gabadhaani waxay isticmaali jirtay dhowr simkaar iyo sidoo kale magacyo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan ama ugu khatarta badan oo kale haddii ganacsadaha magaalada muqdisho u maqlo isla markiiba qofkii lagu amro lacagta u dhiibayo waxaa ka mid ah kan ugu horeeyo waa marwa sahro ee qofka garabkaaga taagan lacagta u dhiiba isla markiiba ninkii aad mooddo inuu isku kaadinayo ayaa lacagaha u dhiibayo sidoo kale tabliiqada ayaa lagu magacaabi jiray taasi oo caanka ah ama aad u yaqaanin ganacsatada magaalada muqdisho iyo magacyo kale oo aad u fara badan laakiin labada ugu qatarsan oo qofka ganacsadaha ee magaalada muqdisho mar haddii uu maqlo isla markiiba uusan ka daba hadli karin ayaa labadaas magaca si kastaba ha ahaatee garsoorka ayaa soo bandhigi doona isla markaasina maxkamadda ayaa lasoo taagi doonaa sidii marwadii maalin dhaweed la xukumay 15 sano lagu xukumay lagu magacaabi jiray cornela weli hay-adaha dowladda soomaaliya kama aysan hadlin arrintaani waxaana la sheegay in ay ku socdaan baaritaan iyada iyo raggii kale lasoo qabtay isla markaasina mar dhow cadaaladda hor keeni doono si kastaba ha ahaatee waa marwadii al-shabaab aheyd ee ugu xilka weyneed isla markaasina magaalada muqdisho ay ka horduwaysay dhinaca kale ergeyga qaramada midoobay ee geeska africa oo markii ugu horeysay magaalada muqdisho yimid isla markaasina ninkaani oo ah nin afrikaan ah ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska africa master onanka ayaa dhowaan booqasho ku yimid magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey socdaalkiisii soomaaliya xilligii uu soo gelayay lama sheegin laakiin xilligii uu bixiyey ayaa la sheegay maadaama uu ka cabsaday in halkaasi waxyeello ay kusoo gaarto master onanka ayaa sheegay in ujeedkiisu uu ahaa mid ku indhi-indhayn ah xaaladda guud ee magaalada muqdisho gaar ahaan soomaaliya amniga iyo arrimaha doorashooyinka maadaama doorashooyinka ay soo dhow yihiin asigoona la fadhiistay dadka guddoonka doorashooyinka soo socdo waxa u tagay ayuu yidhi muqdisho anigoo dareemaya rajo ay ku dheehan tahay awood dadka iyo dowladda si ay uga gudbaan caqabadaha hadda jira ayuu yidhi ergeyga gaarka ah ee geeska africa sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee geeska africa ayaa xusay in intii uu joogay muqdisho kulamo uu la qaatay mas-uuliyiinta kala duwan oo heer qaran ah iyo kuwa caalami ah waxaana uu kala hadlay amniga doorashooyinka horumarka iyo gargaarka bili-aadnimada ee magaalada muqdisho ergeyga qaramada midoobay ee geeska africa ayaa si gaar ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey kala hadlay arrimo ku aadan doorashooyinka soo socda iyo kalsoonida lagu qabo inay noqoto mid hal qof oo cod ah isla markaasina dadka dhan ka wada farxiso laakiin aysan noqonin mid isla markaasina dhinac u janjeerto ay noqoto mid cadaalad loo qabto
doorashooyinka waxay noqon karaan geedi socod dib u heshiisiin qaran laakiin waxay sidoo kale horseedi karaan khilaafka sidaasi daraaddeedna howlaha doorashada waa inay taageeraan qaramada midoobay ayuu yidhi master onanka si kastaba ha ahaatee master onanka ayaa si weyn ula shaqayn doona guddiga doorashooyinka ugu dambeyntii wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey horumarka ka jira dalka wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu sanadka 2020 soomaaliya u yahay mid muhiim ah islamarkaasina la doonaya inay halkaasi ka dhacdo doorasho cadaalad ah taasina ay noqon doonto inay soomaaliya tillaabsatay si kastaba ha ahaatee dardaaran culus ayuu siiyey islamarkaasina dib ayuu u laabtay dhinaca kale xildhibaan faqi galmudug waxay ku socotaa waddo ay ku dhismi karaan laba maamul islamarkaasina fowdo ay noqon kartaa waa sidii uu ku sheegay magaalada kismaayo camal xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa ka hadlay xaaladda maamulka galmudug iyo ololaha siyaasadeed ee ka kala socda magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo fiqi ayaa sheegay in galmudug ay hadda ku socoto waddo ay ku dhismi karaan laba maamul oo isdiidan haddii uusan tanaasulin madaxweyne xaq ayuu yidhi sidoo kale wuxuu ku baaqay in loo turo shacabka ku dhaqan gobolada galmudug iyo mudug si ay u helaan hal maamul oo samata bixin kara islamarkaasina nin aad u wanaagsan oo heli kara haddaba waxa uu bartiisa facebook rasmiga kusoo qoray runtii galmudug waxay ku socotaa waddo ay laba maamul oo isdiidan ay ku dhismi karaan haddii uusan tanaasulin madaxweyne xaaf waxaana dalbanaya ayuu yidhi in shacabka loo diro oo hal maamul loo dhiso ayuu yidhi axmed macalin fiqi oo ka tirsan xubnaha golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya aadna u mayal adag islamarkaasina si weyn uga soo horjeedo hanaanka ay dowladda federaalk soomaaliya wax u wada garabna la ah xasan sheekh maxamuud oo lihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka galmudug ayaa ka socda gudaha magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo ay horboodayso dowladda federaalk soomaaliya halka kaalkacyo uu ka socdo olole kale oo u horkacayo madaxweyne ducaale geyle xaaf islamarkaasina uu doonayo inuu ku dhisa halkaasi galmudug cusub halkaasi ayay ka qurman tahay bahasha islamarkaasina dhuusamareeb howl ayaa ka socoto gaalkacyan howl ayaa ka socoto lama oga sida uu xalku noqon doono balse waxay ay dadka ordoosa ama siyaasadda ka digaya in laba maamul oo iska soo horjeeda ay ka dhismaan deegaanada galmudug ayaa si weyn loogu soo horjeeda si kastaba ha ahaatee magaalada dhuusamareeb ayaa la liliicaysa arrimaha doorashooyinka islamarkaasina waxaa jira musharaxiinta ugu badan waxaana la filayaa in labada beri ee soo socda la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka taasi oo lagu kala bixi doono haddii guddoomiyaha garabka mucaaradka uu guulaysto halkaasi waxay ku noqon doontaa nabad iyo nolol inay aad ugu jabaan islamarkaasina ay ku khasaaraan haddii ay farmaajo iyo tiimkiisa ay guulaystaan waxaa halkaasi kusoo bixi doono daktarka xildhibaanka ah islamarkaasina garabka la ah ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo taasi waxay noqon doontaa inay ayagana ku guulaystaan maadaama guddoomiyaha baarlamaanka lafdhabar u yahay xildhibaanada madaxweynaha u codayn doono ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa iminka fool ah waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in lagu kala baxo guddoomiyaha kadibna madaxweynaha lagu kala baxo si kastaba ha ahaatee warar xiisada ayaa noo soo socda daawada nala joog oo daawar bixin xiga waxaa kale ayax dayuurad ku qasbay inay ka laabato garoonkii ay ku degi lahayd ayixii ugu badnaan oo soomaaliya dhibay ayaa iminka diyaarad dhan oo socoto degi rabto markuu ka horyimid diyaaradii ay degi waas islamarkaasina dib u laabtay ayax aad u badan ayaa diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda ethiopian airlines ku qabsaday inay qadka bedelato sida maamulka diyaaradaha etoobiya ay sheegeen diyaaradan oo kasoo kacday jabuuti ayaa doonaysay in ay ku degto garoonka magaalada biridhabo xilligaasi oo duuliyaasha ay arkeen ayax koronkoro ah oo ku dhacaya matoorka diyaaradda gaar ahaan qaybta marwaaxadaha iyo afka hore islamarkaasina sida sawirka aad ku aragtaan shaashada hore gebi ahaanba ay noqotay mid aad loola yaabay waxay isku dayeen in ay ku nadiifiyaan marwaaxadaha ay diyaaradaha ku duulayso si ay u kala cararaan hase ahaatee arrintaas oo suurgeli waysay diyaaradan waxay u jihaysneed dhanka Addis Ababa oo ay ku degtay waxay u jeesatay dhanka Addis Ababa ay ku degtay sida wararka ay sheegayaan waxaana ka muuqdo raadadkii ayixii faraha badnaa ee ka hor yimid islamarkaasina si weyn looga jeedo diyaaradda afkeeda hore bariga afrika waxaa hadda weerar adag ku haya ayax duulaan ah oo ka mid ah midkii ugu badnaa abid muddo 25 sano oo kaas oo dhibaato ba-an ku hayo dalaga beeraha islamarkaasina soomaali ay ku jirto si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa waxay la noqotay fajac maadaama diyaaradan ay guulayso ay dib u soo celiyeen
haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyn yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo والله ثم والله والله ثم والله